arrimaha gudaha waxaan ka codsanaynaa markii waanu bixinaynaa annagoo in ka dhintay iyo xilbaankayga dhintay khayrka ah dardaarankiisii markuu ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah kelmadiisii ugu dambeysay waxay ahayd waxaad idinkaga tegey inanka iyo aabbaha isagoo raas ahaan nagaga tegey oo yidhi garxasi waan idinkaga tegey isagoo le in raas ahaan idinkaga tegey deegaanka ka soo jeedin kaga tegey xildhibaanadii kaga tegey yacni wuu dardaarma wuxuu ku dardaarmay hadal aad u wanaagsan ninka u gurmada reer somaliland maaha waa nin soomaaliya dadkan shaarka nahay weeyaan si fiican waxaanu ka codsanaa haddaba xukuumaddii iyo wasiirka arrimaha gudaha annagoo sharcigii iyo qaynuunkii raacayna tobanka dambe ee khayr kale waxaanu ka codsananaa inanku waa dhalinyara inuu xidhnaado intaanu lacagta bixinayno laakiin odayga macaan kale ee aabbaha ee xanuunsanaya ee jeelka ku dhex jira in la soo daayo warqadda lacagta aanu ku bixinayno iyo wixii dhibaatay dhacday ee loo haystana annagaa qaadanay oo xildhibaankiibaa qaatay oo annaguna waanu bixinaynaa iyo dad badan oo mutaxarifiin ahoo lacag haysta oo wax bixinaya oo waxaanba soo afjaraya intay waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka cadaaladda qof kastoo damiir leh qof kastoo aabba leh qof kastoo walaal leh qof kastoo islaamnimada ku damqanaya qof kastoo aabbaahoo wax dhalay qof kastoo walaalahoo walaalku wuxuu yahay garanaya qof kastoo aabbanimadu waxay tahay garanaya in odayga la soo daayo magtanana laga saxeexo inankaana loo hayo odaygana bannaanka la soo dhigo arrintaa abagabaadhay waxba ka qaban karta aad iyo aad baad mahadsan horta fariintaada wasiiladan waan gudbinaynaa public iyo private ba waan gudbinaynaa waana ka dhabaynaynaa waa wallaahi sidii aan maalintii aan ragga culculusba kuula soo hadalsiiyeen isla garayno waan kuula soo hadalsiinayaa si weliba gaar ah arrimaha gudaha hadday noqoto iyo hadday noqoto ilaa iyo madaxtooyada waynu socodsiinaynaa marka waana si wacan bardhigto ninka dhagarta geystay dee maadaama isagii lahayo aabihiin u xidhnaado caqlan wa sharcanba xaq maaha marka mar hadday labadooduba wada xidhnaado laakiin odayga la soo daayo odayga isaga biduuni shuruud in lagu soo daayo sharci darri ku xidhan yahay laba qof looma wada xidhi karo shakhside maba dhici karto caqlan wa sharcan maba shaqaynaysaba taas laftigiisa dembi ah odayga laftiisa dembigan ciddii ka gashay iyo dulmigan ciddii u geysatay maadaama dawlad ay ahayd tii hore dee waa qorisutu tii hore dhacday dhergi baa la yidhahdaa dhergigu hadduu dhaco naf male naf male haba ahaatee laakiin odaygaasi mag inuu inagu leeyahay somaliland ahaan intuu xidhnaaba wuxuu inagu leeyahay xadhigiisii yes xadhigiisii bay nagu leeyahay wallaahi la siinaya wallahi sharciga adduunka saasaa u jira qofka haddii aan lagu haynin lagu waayo wax dembi haba yaratee whatsoever muddada dheer intaa leegna u xidhnaado muddada dheer waa in loo qiimeeyo oo lacag loogu bedelo taa qudheeda ayaa ka bixin karta inankiisa magta absolutely waa saas midna waynu dheernahay warya waxyaalihii ina gubayey waxyaalihii abaarteena soo maray waxyaalihii ciidankeena soo jebiyey cadaaladdaradaasa ka badaysa mogi aad iyo aad waxaynu laakiin haddaad imaka jeelasha gasho waxaan isiriniyo haddii ma dee in kastoo cadaaladda imaka xisbigan waddani aad ay cadaaladda u shaqayso oo aan soo daynay la wariyo 20 kalaba la soo daayado ku xidhnaa sakariyaad u nacamlaysay sakariyaad dhegaysatay wax noocaasaba qofka ku xidhnaa laakiin waxaan leeyahay haddii jeelasha la waraysto ninkan cabdimaalig baa khatara moogta aad iyo aad oo beri uu soo daayay nin orobo 15 sannadood xidhnaa oo xidhnaa 7,000 imika laba uu soo daayay shalay maanta imikana laba uu soo daayay ma garatay ninkaas waa nin ilaahay moogta marka arrinta wadankii baa joogtaan arrinta odaygaas ka qayb qaata xasanaad baa inoogu jira macal ciro janna ugu jirta wasiirka arrimaha gudaha janna ugu jirta dowladoo dhan janna ugu jirta somaliland oo dhan naxariis baa ugu jirta arrinta ma kusii geejiyaa kusii geeji wayno horta inaad dad badan baa ina dhegaysanayo inagu dee markaynu social mediaha ka hadlayno xitaa madaxweynaha arrintan waa u tegaysaa waa dhab horta inagu waxba codsan mayna waynu ku amraynaa allah waxa la codsadaa markaad xaqdarro ka hadlayso laakiin markaad xaqa ka hadlayso waxa weeye waa qayb amarka ka mida qof kasta oo islaama ama qof kastoo dowladda reer somaliland u shaqeeya ama qof kastoo reer somaliland ama dowlad ka shaqeeya ama shacaba way qusaysaa macnuhu wuxuu yahay amarku maaha dowladnimo iyo awood sheegasho maaha waxaynu leenahay dadka madaxda inoo ah warniyow intaasoo qof ayaa maalinta idii soo dareeran idii codaysay inaad cadaalad
عقلي يا قوريو ومدنمر هذين كتان يو مارتي بلاد النمو وهالقفو قفي بس انت انت عصو قفو واحد كادك تيوم قلمو هدو أجنبي يهي يهدو إسلام يهي يهدو قال يهي وقفك بلادك على ما الظلمي قفك حقه ولا يسيا قف دم بيقول قلنا وحق منا وصحيح لكن ودرجي هورين هذا درجي هورين ما يكون هوري يكون دبوا ينقوا وحنا لنا ما تقعنا ورحق دخل عبد الرحمن كمان نارك تنا عبد الرحمن كمان نارك وح لا حريبة ما بقى نارك ما نقول ما ينادي أنت دولة بنقول نقف حرية سماعة ها دولة هروات الدولة ما هذا حقوق هايسا مركب وحنا لنا كوي هوري كوي دمبابا ورنا يا شباب ليش نقبل شيء كذا يا أبو مبدأ إلى سر حقوق دولة يدي باتين هذا عدالة هذا يدرك بين عدالة هذا بتاعنا ذلك يجمد يدي بالنا سين المسوي أساسا شو قرر ما يسان ونقول بيوري ولا عبد الرحمن حال عبد الله شعب كيسون الشقية ريح حاكميو تيم كاسيو وحدوها الجميسين هذا نيجا وحن كوري سبتور إلى عيسين وحن كملوا بي عسيسين واحد دول يسمى يسبدل عدالة الهرم عدالة بقى قربنا عبد الرحمن عدالة دي يسبدل كل هي عدالة دي بقى تكررها أنا قلنا وانا دلنا ربنا تينا نتكون راعني وانا جتريك حق الدم يتكلف والله حتى أنا أرنتها وانا كنا بينا كوك هذا كاسو اللي هو اللي يقالنا هو كان قمر يا قدومي خير بدلنا وانقوها يا يسوع أبى قاعد يربع هاي مكان فيه الله هذا أفريقيا من الشيء هاي أفريقيا دي الله يلها وانقصوا عيا تلفوق قبل أي كاسي هاي وكان قمر يا أدبني سامحنا دقيقة يسوع أنا يقدر تدك أي كنت أنا هيجويني إيه ده هيقارني أي وقاي عفي سيا مسامح وأنا أفريقيا وقاي سكافرتك لكن أري كاري نجا جاتي وقصوا عيا أي سكري وتكنا تسأل بام سكري جس شو بارتاي هاي أم ده أي ينكو هاي هسود ويا قالي والماشي ولا عيدي محايد الحبيب بتشوف بيبقى مخصصي ده بابا وطاطل كيه هاي ماشي مين إنا بتشوفين خبر يرمي إلا ما أفرن بدو برامج صح هاي كسرة وط أي كاس يا وان كفتة يعني ولا يدربي هاي والله كفتة يا أبغى السلام يد كسرة أنا كنت عايدين يا موتى واحد كوزينة يعني سكري واحد إيش أكتر كل مدة بكرة دل هاي معنا وحويا أبها جيت كويا أبها جيت وأنا بطون ها أوكي كل مدة سوا كل مدة حكى هذيك يا وقت وأبها جيت ها والله وأبها جيت كاف سواء بخلوا فسره أرماهن ها لو قد يصيروا جيت وينه هالع وضع ركتنا على مدة الله وأبها جيت ويعين وحوي عضياش جيت كوكله ها ما كان انتي قرنك الجمهورية الصومالي لان يقبتها النصب كأ يسقوا إنين وهيرنا هي قرن خورنا نحريس يسري إلى إبابة يذكروا الدولة ماشية الصومالي لان لبضا إنن أبها هي إنن كيس حيران مدة بلد حنا إلى الدولة دي كل مية إنن كيس وجيستي لبعتنا شرعيا شرعي وحو قرانيا يوروب إما كادانا نقوح ديلو أما أن دنبي كانوا هو إلي لما حرايو ولالكي لما حرايو عدكا لما حرايو إن هذاكي لما حرايو أنا قوم بي دولو دو إيمان سابيس قف كلا لما تابن كرو إن مادام نكي لواي شخصي والله حركرا ولالكي والله حركرا هديم كي لواي صح ديمو دعي رواي حركرتا وحنوان كرا باب سو قبتا ولالكي با وحد ديلي غيركي دي وحد لقي ديلي باوي قابان كرابا marka waanu xidhnaan karaa walaalkay adeerkay waanu xidhnaan karaa inaanu abtahay waa lay qaban karaa wada xaafadda hoose in hal shakhsi inuu xidhnaado sax bay waxa si cadaalad darra ah in inan iyo aabihi laba shakhsi ay nafar u xidhnaadaan oo weliba aabihi beeshi yahay ha weliba aabihi beeshi yahay oo macaan qabo oo dhanaan qabo oo waa dowladdii kulmiye waxaan iminka doonaynaa inuu ka codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland inay magta naga saxeexdo إنا كنا أنت نقول عقد بحينه إنا كن وجهك كنا وجهه لكن أوديك معاك أي نجس وديسو أنت من نقول قد بكرتها ها هو قد بكرة عاوضة سين دي قد بكرة عاوضة سين وسير كريمة جودها إذا لا وضع على سين كرا قولي لنا إذا إن وسير كعدالة ده الريمة جودها ما هي